shalay ayay ahayd markii ay dhibaatooyin ka dhaceen magaalada Jigjiga isla markaana dhibaatadaasi ay waxyeelo ay ka soo gaadhay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Jigjiga hase yeeshee ciidamada ammaanka deegaanka iyo kuwa federaalka ee dalka oo iskaashanaya ayaa si wada jira xasilinta iyo nabadgelyada xarunta deegaanka u soo dabaalay ugu dambeyntii haddaba waxaanu saaka aan mikrofoonka la dhaxmarnay bulshada ku nool magaalada Jigjiga oo wax ka weydiinay faa'iidada ay leedahay nabadgelyadu iyo sida ugu habboon ee markaas ay bulshadu u ilaashan karto nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka nabadgelyada aad u fiican tahay waa kaam nabadgelyada aad u dadaalayna dawladana isbarbar taagna weeyaan inaan wixii qalalaasaa wada iska qabano iska difaacna weeyaan dawladana xukuumadana cusub aan taageerana waan garab taagsanahay wax balaayo qalalaasaa ma jiro maanta waa naga shaqaysana nabad iyo caano shalay shaabaradii yareed Ilaahay uu naga qaboojiyay nabadu way macaan tahay nabadu qaali weeyaan hooyo nabadu waxa weeyaan nolosha aadamaha xawayaanka haddii xawayaanka cuno oo meel xawayaan cunaayi ku jira xawayaanka kale uu ka yaaca marka nabadu qaali weeyaan anagu siiba hooyaanu nahay hooyada nabadu way u macaan tahay awlaad bay leedahay wiilal bay leedahay inuu badkeeda wax gaaraan ma jecla in dhibaato soo gaadho hooyadu ma jecla qaxu faa'iido uma laha nabadu waa qaali way fiican tahay waxaan u sheegayaa hooyooyinka wacdigelin inay sameeyaan nabadgelyada in loo halgamo nabadgelyada in la taageero loo wada halgamo oo la taageero nabadgelyada oo ciidanka la isbarbar taago oo nabadda laga shaqeeyo ayaan ku wacdiyi lahaa hooyooyinka dadka degan deegaanka waxaan u gudbinayaa nabadda in laga shaqeeyo horumarka nabadgelyadu qaali weeyaan way macaantay nabadgelyadu nabad haddayna jirin caana la dhami maayo nabadgelyo haddayna jirin la hurdi maayo nabadgelyo haddayna jirin la shaqaysan maayo nabadgelyo haddayna jirin waxba ma jiraan dee marka waxaan u gudbinayaa in nabadgelyada la taageero oo dhinac looga soo wada jeesto waxaan kula dardaarmayaa nabadgelyadu inay nolosha tiirkeeda koobaad ay tahay marka wax kasta wax barasho ma jiraysa hadii nabadgelyo jirin ganacsi ma jirayo socod ma jirayo eega wadada hadaad marayso ay nabadgelyo jirin de kalsooni ma marayso orad baa ku maraysa marka walaalay waxaan leeyahay nabadgelyada aan ilaashano aan gamcays qabsano horumarka iyo ma garanaysaa deegaanka hana qaado inaan cagaha la qabanintay oo inuu nabadeena ilaashano oo inuu isku duubnaano nabadgelyadu faa'iidada leedahay wax la soo koobi kara maaha marka nabadgelyada waxaan leeyahay laga wada shaqeeyo ciidanka kaliya tayaan lagu eegin shacabka dhammaan dhalinyaro iyo hooyada cid walba waxaan ku inta gacmaha is qabsada nabadgelyada laga wada shaqeeyo albaabada yaan la soo xiran wadanku waa wadankiina dalku waa dadkiina ummaddu waa ummadiini gacmaha la is qabsado oo si nabadgelyaha waxaan ku wadanka loo wada joogo wixii arqalad iyo rabshad wadana la iska qabto nabadgelyadu waa shay qaali weeyaan wallahi nabadgelyo la'aan waad ogtahay shalay shibad yareed ee ka dhacday magaalada Jigjiga shacabka markaliya ay kala yaaceen marka nabadgelyadu waa tiirka koobaad ee nolosha la oran karaa nabadgelyo la'aan waxba ma jiro horumar ma jirto waxbarasho ma jirto muwaadiniinta waxa loo gudboon in ay nabadgelyadooda ilaashadaan oo hadiya habeen bay ilaashadaan oo ayna kaliya ku eegin ciidamadeena dhammaan inayna ku eegin ee dhammaan shacabka oo dhani inta gacmaha is wada qabsadaan ay nabadgelyadooda ilaashadaan haddaba xukuumadda oo kaliya ah loogama baahno inay nabadgelyadu ay ka shaqeyso balse bulshada gebi ahaanba waxaa looga fadhiyaa inay markaas ay barbar istaagto isla markaana wixii arqalad ku ah horumarka iyo nabadgelyada deegaankiisa ay markaas ay ka wada shaqeeyaan aanu dawladda waxaan fariin u dirayaa nabadgelyadu waa noo wada dan balse laakiin qofkii talaabadeeda waxaan ku yiri talaabo ka maxaan ku ka qaldan qaada ee maxaan ku nabadgelyada maxaan ku ka hor imanaysa qoomiyadda doontaa talaabadeeda in laga qaato ayaan maxaan ku dawladda fariin u dirayaa dhalinyarteena odayaasheena dhammaan inaga oo isku wada duuban oo gacmaha is wada qabsana waxa khalkhalka nabadgelyadeena gelinaya ama wada noolaanshaha lagu wada nool yahay magaalada Jigjiga gelinaya in aan ka hortagno oo dhammaanteen gacmaha is wada qabsano nabadgelyadeena ilaashano nabadgelyadu waa waxa ugu muhiimsan ee qofka bilaadanka ay laga marmaan tahay inuu mar walba uu helo haddaba bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga waxa looga baahan yahay in markaasi ay amnigooda iyo nabadgelyadooda ay markaasi xasilistaan isla markaana ay ka shaqeeyaan Lumaan Cabdi Axmed SRTV Jigjiga